بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan jecelahay maanta mar kale inaan la wadaagno meediyada iyo halgamayaasha iyo dadweynaha Soomaaliyeedba fariimihii jowxo mid ka mid ah oo aad u diiran maanta waliba maxaa yeelay oo ku saabsan xaaladaha taagan oo laba qodob oo muhiim ah aan ka xusi doono. ugu horeyso xaaladda gobolka City oo afar jirsatay oo boogin ugu taalla ah oo dhiigbax ah oo bogsan weyday oo nabad loo keeni waayey oo xal loo keeni waayey oo difaac loo keeni waayey oo siyaasad ku jihaysan ayna jirin oo ku fashilannay oo xukuumaddu inugu fashishay oon ku ceebaysannahay oo cambaar inugu taalla ah oo oohin joogta ah oo qax ah oo dhul la qabsaday ah oo xal la'aan oo difaac la'aan ah ma qabata dadka Soomaalidu intaa waan ka karti badannahay waan ka xoog badannahay waan ka ciidan badannahay waan ka midnimo badannahay waan ka dal jecellahay nooma qalanto sida loola dhaqmayo ama hal la gaaro siyaasad ah dhulkaas gacantaynu ka taagnay intaasaan u goyno canfariinaga haraysa waxaa maanta soo gaaraysa oon ognahay labadii degme u dambeysay inay qabsateen Cundufi iyo muxuu ahaay danna helo oon dowladdu ku jirin horey u qabsadeen muxuu ahaa Cadayti iyo Garbaciis haddana labadan ay ku darsadeen madani iyo waxaa lagu soo qaxay meel yahda qaraf labadiina madaafiicda baa soo gaartay dadkii way ka soo qaxayaan deedna dirdhabaan isku imaanaa dirdhabana maxaan ku difaacayna dirdhaba kuwaas difaac u ahaa difaaca la soo jabsado yani ma joogayso xarunta dhexe meesha ma fadhiyayso ligi dirdhaba haddaba arrintaas dadweynaha Soomaaliyeed dadka soo qaxay iyo dadkan soo barakacay ee cayroobay in loo gurmado dhalinyarada Soomaaliyeed inay kacaan wey waxgaradka iyo aqoon-yahanka iyo odayaasha dhaqanka iyo muxuu ahaay siyaasiyiinta iyo xukuumadba in loo kaca wey dadkan oo wax laga qabto wey abaarta iyo gaajada iyo qixidana muxuu ahaay laga gargaaro haddii rabbi xog ma hayaana difaacna loo sameeyo xukuumadda ismaamulka Soomaalidana maanta hadday dad sharaf leeyihiin waa iscasil lahayn iska soo qadaad buurinta unaanta ah waa dhaqan maartay Afrikaan badanna lagu yaqaano dadka aan lafahooda aad u jeclayna ay sameeyaan waxba igama gelin ceeb waa laba af broojis ma garanaysaa iska ah marka qodobka isaga ah Soomaali oo dhan bayna cambaar ku tahay nooma qalanto sida loola dhaqmay xukuumadduna ku fashilantay arrintaas maantana haddii aad ay maartay isla weyne iyo muxuu ahaay taariikh jacayl iyo sharaf jacayl hadday ku jirto xilka ka taglaan dadka Soomaaliyeed yaan ola sinaanaynaa si isu difaacana qayb baan ka haynaa xilkana waan ka tegaynaa bay dhihi lahay waa qodob kalena waxaa wey mid jooxa ku saabsan waxaa jirta aad ogtihiin halgankan goobnimadoonka ee shacbiga Soomaaliyeed Nasrullaahi ka soo bilowday jabhaddii xoreynta ogaadeen soo maray jabhaddii soo maray Soomaali galbeed ONLF soo muxuu ahaayey ku soo dambeeyey iyo aasaaskii halgankii ONLF oo 38 jirsaday yaa lagu xusuustaa kumaankum u dhinteen kumaankum loo xiray kumaankum loo dhaawacay kumaankum loo dhacay kumaankum loo mooraduugay halganka saas ah taariikhdiisa iyo xuskiisa iyo nooleyntiisa weeyaan muxuu ahaay marka aasaaska jooxa laga hadlayo qof iyo laba iyo saddex iyo koox iyo lagama hadlayo xusuus taariikhi ah dadka Soomaaliyeed ku suntan qalbigooda ku taalla muxuu ahaay damiirkooda iyo taariikhdooda iyo dareenkooda iyo hidahooda qayb ka mid ah weeyaan marka xafladda waxaa loo xisaaray guddi xukuumaddan intay inala qaban lahayd guddoomiyihii guddiga loo xisaaray xubin guddiga fulinta jooxa Cumar Sheekh Cabdullaahi Cumar soo yaa la xiray telefoon iyo meel aad dirtay baan maqalay iyo waa dad intaa ka il dheer baan nahay oo ka fahmo badan marka xafladda darteed weeyaan hoolka sayidkaan ku qabsanaynaa bali furihii baa laga qaatay hoolka sayidka koox aanu samaysanay baa la koox idinku samaysay maartay ee soo halgantay iyo wixiga ma rabnee koox dowladda la sacbisa yaan ku martiqaadaynaa bay daandaansiga marxaladdan waad garanaysaan waxaynu u baahnayn
annagu haddaan jooxanahay sababtaan u qaadanay nabadda waxay ahayd inay meesha ka baxdo soomaali kala qaybsan oo layihahda nabadda inta ogol nabadda inta diidan xukuumad iyo jabhad iska soo horjeeda shacbi kala qaybsan dad aan shiri karin dhallinyaro aan isu iman karin aqoon-yahan aan doodi karin horumarin fikri ah oo qadiyadda soomaalida lagu samayn karin because dagaal baad wadaan inay meesha ka baxdeen maxaa inoo kordhay inaan tashanno ma ogolo shir wada tashiya ma dhacayo caqliga soomaaliyeed ma ururayo xoogga soomaaliyeed ma ururayo jabhaddu si fiican nabadgelyo inay ku halganto waa loo diidan yahay jabhadda iyo dowladdu inay midoobaan waa loo diidan yahay idan isticmaalka etoobiya ee lugahayna hayn jiray inuu ina haysto keliya ma inaan kacno oon tashanno oon midoowno oon isu tagno furaha guusha weeye ninka inaad guursataa le isqolofadhi baa ka horeysa inaan horumar siyaasi iyo horukac dhaqaalo samayno inaan lugaha isku duwanno oon fikirka isku duwanno oo hal abuurku yimaado oo environmenti lagu tashan kara yimaadaa ka horeysa tii baa laynagala dirirayaa marxaladdan aad ogtihiin dagaaladii nagu socday iyo sidaan u midownay iyo sidaan u kicinay dadka iyo sidaan ula safanay xukuumadda tabarta dar marka xukuumaddani way nagala dagaalami weyday xoogag inagu soo duula way nagala dagaalami weyday gaajada iyo muxuu ahaa sicir bararka iyo dhaqaalo xumida way naga difaaci weyday muxuu ahaa derisyo iyo qoqobriix iyo dhul laynaga qaadanayo iyo ciddi kumiroojinta aan ku qabno qowmiyadaha kale etoobiya ee inaga budigaysan etoobiyanimada xaggeeda inooga budigaysan qowmiyadahaas qoob ku joogsiga qoobka ay nagaga joogsanayaan iyo lugta ay nagu joojinayaan waxba inooga tari laadahay laakiin maxay xariif ku tahay inay inaga ciddida inagu maroojiso inay inaga ciddida inagu maroojiso oo aan soomaalidu isu imanin oo la kala hahayo oo la niyad jabiyo oo la wahsi la geliyo oo hal abuurka iyo qiirada iyo isku tiirsanaanta muxuu ahay laga daciifiyo taasay xariif ku tahay marka waxaan ka diidnay dowladda etoobiya iyo shaydaan kasta oo yimaada midna kama aqbalayn dadka soomaaliya aayahooda gacmahooda ku qabsanayaan waxaa la gudboon waxgaradka dhallinyarada iyo culimaa udiinka odayaasha dhaqanka ganacsatada dhulkan iyo dadkan iyo aayaha idinkaale intayna mindi uus ku tagin aan tashanno weeye sidan kagama bixi karo abaaraha iyo colaadaha iyo qoqobariixa iyo etoobiyadan muxuu ahaay wax kala boobayseen waxba isu ogolayn iyo wax qaybsigan laynagu gacan bidixaynayo duruuftan maxaa la yidhi 20 jir mudug jooga ilaahay uma xil qarin qowmiyad etoobiya ku nool nasasho uma taalo ragga inaga bixin lama ahe aayar aan idin ducaynaynaa iska fadhiistaan dhahno anu saas hayla quman idin ducaynaynaa iska fadhiista muddaadna soo wadeen وبارك الله فيكم محوها واحد قبطين واحد حميسين عفى الله عما سلف هذا الرجال ودروفتن نقول حيرا سيدا كما بحينين نو بنايين لي هذوي جوحنا محوها هاي سيدا أولا دقميني دروفتن كدل قادنيني ما سعنيس تشبان كقلينا وان دول قادني وان أسمري وان أتنازلي وان لا شقيني وان تاgeeray inay guuleystaan baan waan ka aamusnay waan u xil qarinay waan u ceeb qarinay waan ka aamusnay waan dul marmaray waan ag marmaray waan u turaynay waxba way u tara laadahay iscajabin bayba ka qaadeen intaanu tashanno yaa talo aad u adag weliba la gaari aad baa u mahadsantiin